barnaamijka xukuumadda dalka qaran oo ka kooban 6 tiir oo waaweyn ay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen 7 bishan Agost. haddaba maxaan ka fahamsanahay qorshayaasha muhiimadda gaarka u leh xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre annagoo 6 tiir ee xukuumadda mid u dur istaagi doona ayaa maanta waxaan ka hadlaynaa tiirka koowaad ee xukuumadda dalka qaran kaas oo ah tiirka dib u xoreynta iyo sugidda amniga. halbeegyada hortabinta u leh barnaamijka xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ugu horeeya dib u xoreynta deegaanada ay ka dhaqdhaqaaqaan maleeshiyaadka argagixisada iyo xaqiijinta amniga Soomaaliya si loo gaaro xasilooni nabadeed oo waarta. hadafka xukuumaddu waa inay xaqiijiso in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu xor ka noqdo cabsi iyo khatar ku timaada naftiisa, maalkiisa, sharaftiisa, xuquuqdiisa iyo xorriyadiisa taas oo ay u siman yihiin dadka oo dhan. dhanka kale xukuumaddu waxay xil iska saaraysaa xaqiijinta nabadgelyo ka hirgasha dalka oo idil bad iyo berri miyi iyo magaalo nabadaas oo cirib tiri karta cabsi iyo dulmi kasta. wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda iyo hay'adaha dawladdu waxay hirgelin doonaan adeeg hufan oo dalka u horseedi doona isbeddel amni oo wanaagsan. xukuumadda waxaa dhaqan u noqon doona waxqabad waxaa lagu qiimayn doonaa horumarka aan ka gaarno dib u xoreynta iyo sugidda amniga dalka. wasaaradaha hay'adaha amniga iyo saraakiisha u xilsaaran howlaha sugidda amniga waxaa la fari doonaa inay dedejiyaan siyaasadda amni qaran, qorsheeyaan istiraatiijiyo wax ku ool ah oo qeexaya shaqada sugidda amniga ee dalka. siyaasadda amniga waa in diiradda lagu saaraa gaaritaanka siyaasad xasiloon, tayeynta ciidamada qaranka, helista xog iyo xuuraan lagu hortagi karo falalka amni darro ee lidka ku ah shacabka, lana fulinayo barnaamijyo dib u xoreyn ee deegaanada ay joogaan argagixisadu. tiirka dib u xoreynta iyo sugidda amniga waa tiir ka mid ah tiirarka saldhigga u ah barnaamijka xukuumadda iyo qorshaha horumarinta qaranka. tiirkani wuxuu hormuud u yahay hagidda iskuduwidda, la socodka iyo qiimaynta qorshaha dib u xoreynta iyo sugidda amniga dalka. sidoo kale tiirku wuxuu xoojinayaa dib u dhiska iyo tayeynta hay'adaha amniga ee labada heer ee dawladda ee kala ah federaal iyo maamul goboleed, wuxuuna si dhow ula shaqaynayaa wasaaradaha, hay'adaha dawladda iyo beesha caalamka. waxaa waajib ah in madaxda heerarka kala duwan ee dawladda federaalka iyo maamul goboleed, ururada bulshada, haweenka, dhalinyarada iyo culimaawidiinka dhammaantood ay si wada jira isaga kaashadaan fulinta qorshaha dib u xoreynta, sugidda amniga iyo xasilinta dalka oo dhan. xukuumaddu waxay muhiimad gaara saaraysaa qodaynta dhaqaale ku filan howlaha dib u xoreynta gobollada dalka iyo sugidda amniga guud ahaan ee dalka. isla markaasna xukuumaddu waxay meel marin doontaa qorshayaal lagu godoominayo cadowga kaas oo ay ka saamayn doonto dhanka dhaqaalaha, isku socodka, xakamaynta hubka iyo ilaalinta xuduudaha. xukuumaddu waxay la shaqayn doontaa culimmada Soomaaliyeed si loo hirgeliyo wacyigelin bulsho oo ka jawaabaysa fasiraadaha khaldan ee argagixisadu ay ka bixiyeen diinteenna suuban, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha amniga iyo xasilinta dalka. wacyigelintaasi waxay si gaar u abbaari doontaa da'yarta Soomaaliyeed si ay uga feejignaadaan afkaarta lidka ku ah xasiloonnida iyo falalka